horaantii bishii aynu soo dhaafnay ee Juun waxaa warbaahinta qabsaday warbixinta injineer ka mid ah injineerada shirkadda Google oo la wadaagay wargeyska Washington Post warbixin ku saabsanayd in Google ay ku guda jirto samaynta mashruuc lagu hindisayo robotyo leh dareemaha iyo qaab fikirka bini'aadamka. injineerkan ayaa sheegay in robotkan oo loo yaqaano Lambda uu gaaray heerka miyir qabka iyo isku filnaanshiyaha fakar ee bini'aadamka oo kale, awoodna uu u leeyahay inuu kula sheekaysto sida qof caadi ah, kulana wadaago waxyaabaha farxad gelin karaya iyo sidoo kale waxyaabaha murugo ku reebaya. dhacdadan ayaa sababtay in Google ay shaqada ka fariisiso injineerkan iyadoo ku andacoonaysa inuu bannaanka keenay sirihii shirkadda, sidoo kalena waxay iska fogaysay run ahaanshiyaha warkan. arrintan ayaa bannaanka keentay su'aal uu aadamuhu isweydiinayay sanooyinkii ugu dambeeyey oo ah waxa dhici karaya haddii robotyada sida waalida ah ugu baahaya adduunka ay ka baxaan xakamaynta bini'aadamka. ma laga yaabaa in la arko robotyo awood u leh inay fakaraan, sameeyaanna amarro ka baxsan amarradii lagu borogaraamiyey, iyo su'aasha cabsida abuuraysa ee ah maxaa dhici doona haddii robotyadu ay ka baxaan gacanta bini'aadamka. saddex iyo labaatankii bishii saddexaad sannadkii 2016 shirkadda Microsoft ayaa go'aansatay inay hindisto barnaamij ugub ah oo aan horay loo arag. waxay ka sameeyeen akoon aaladda Twitterka. akoonkan ayay rabeen inuu noqdo akoon oo si dhammaystiran u maamulayo nidaam ku dhisan artificial intelligence ama waxa loo soo gaabiyo AI. haddii aynu si kale u dhahno, akoonkan ayaa waxaa si dhammaystiran u maamulaya robot oo wax shaqo ah kuma lahan aadamuhu. waxay ugu talagaleen inuu la hadlo dhallinyarada da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 24 sano, uga jawaabo dhammaan su'aalahooda, isaguna uu wax ka barto mar walba oo ay dadku su'aalo weydiiyaanna. robotkan ayaa awood u yeelanaya inuu wax badan barto ama ogaado. robotkan ayay Microsoft ugu magacdartay Twit. Microsoft ayaa sheegtay inay ku borogaraamiyeen akoonkan inuu noqdo sida gabar dhallinyaro ah oo 19 sano jir ah, sidaasina uu ula sheekaysto dhallinyarada. dabcan waxay ahayd hindise ugub ah, sidoo kalena ka turjumayay baaxadda ay la eg tahay awoodda uu gaaray caqliga aadamuhu in la sameeyo robot ama kombiyuutar awood u leh inuu dad caadi ah la sheekaysto, ka jawaabo weydiimahooda, sidoo kalena inta uu la hadlayo uu wax ka barto. ma ahayn arrin sahal ah, laakiin haddii aan ku weydiiyo daawade, maxay tahay sababta aad u maqli weyday arrintan ama jiritaanka robotkan, ama haddii aan dhahaba sababta aynu u maqli weynay? xitaa aniga laftigeyga waxaan ogaaday intii aan baaritaanka muuqaalkan ku guda jiray. waa in Microsoft ay si gebiye ahaana u xirtay akoonkan hal maalin uun kadib markii ay sameeyeen. haddaba maxay tahay sababtu? sidaynu soo sheegnay, aaladdan ama akoonkan loo bixiyey Twit ayaa u baahan si ay wax u barato ugana jawaabto su'aalaha la weydiinayo inay la hadasho dadka. maxaa yeelay mar walba oo ay dadka la hadasho waa mar walba oo ay wanaagsanaadaan jawaabaha ay bixinayso, una dhowaato in qofka aan ogayn in waxani uu yahay aalad uu hagayo robot uu isku khaldo aaladdan iyo bini'aadamka caadiga ah. haddaba waxaa dhacday in bilowgii hore uu akoonkani si dabiici ah u shaqaynayay, u soo dhigayay bostiyo dabiici ah, sidoo kalena uu jawaabo siinayay dadka la soo xiriirayay. laakiin waxaa dhacday in hal mar saacado yar uun kadib ay bilowday inay soo dhigto sawirrada Hitler. intaasi oo keliya maahan, balse mar la weydiiyey su'aal ahayd dhacdadii lagu xasuuqay Yahuudda ee loo bixiyey Holocaust, ayaa ku jawaabtay inaysanba dhicin oo ay tahay mala awaal. sidoo kale mar kale waxay soo dhigtay tweet ay ku leedahay Hitler wuu saxsanaa, aniguba waa necbahay Yahuudda. waxay ahaayeen hadallo xitaa shirkaddii samaysay ee Microsoft ku noqday filanwaa iyo amakaag, kuna soo jeediyey indhihii dadweynaha oo dhan. kuma joogsan hadalladan oo keliya, balse sidoo kale waxaa dhacday in mararka qaar ay si toos ah u aflagaadaynaysay madaxweynihii Maraykanka ee xilligaasi, Donald Trump. dhacdooyinkan ayaa ku khasbay Microsoft 24kii bishii saddexaad, maalin uun kadib markii ay dah furtay akoonkan, ay si gebiye ahaana u xirto.
tay ayaa yoolka loo sameeyey uu ahaa inay bini'aadamka wax ka barato sidoo kalena ay yeelato qaab fikirkooda laakiin marnaba shirkaddii samaysay ee Microsoft qorshaha kuma darsan in dadka ay u samaynayso aaladdan aysan isku wada fikir ahayn halkii ay aaladdani wax ka baran lahaydna waxay dhexda u gashay dad hadallo kaftan ah kuwo xurguf leh iyo kuwo aflagaado ah babaraya maadaama aysan lahayn caqli kala saari karaya waxa suuban iyo waxa xunba iyaduna waxay soo dhigtay dhammaan wixii loo sheegayey taasoo ka dhigtay mid ka baxda xuduuddii loo sameeyey aaladdan iyo robotyo kale oo tiro badanba waxay ka mid yihiin aaladaha ku shaqeeya nidaamka loo yaqaano artificial intelligence ama loo soo gaabiyo AI oo noqonaya Soomaali ahaan caqliga gacanku samayska ah haddaba muxuu yahay artificial intelligence nidaamka loo yaqaano AI ayaa ah nidaam u oggolaanaya aaladaha iyo robotyada inay yeeshaan qaab fikir iyo maskax u dhowtan aadamaha marka qofka bini'aadamka ah uu fakarayo wuxuu awood u leeyahay inuu dareemo dhammaan dhacdooyinka ku hareeraysan wuxuuna dareenkani sabab u noqonayaa inuu go'aan qaato kadibna uu go'aankaasi ku tallaabsado marka laga hadlayo robotyadana gaar ahaanna kuwa leh nidaamka caqliga gacanku samayska ah ee loo soo gaabiyo AI iyaguna waxay leeyihiin qaab fikirkan oo kale inkasta oo aysan weli gaarin heerka bini'aadamka AI ayaa u qaybsama laba qaybood qayb daciif ah oo la yidhaahdo weak AI oo ah nooc lagu borograamiyey hal shaqo inuu qabto sida tusaale ahaan waxa loo yaqaano autofill ee ku jira dhammaan taleefannadeenna ama haddii aynu si kale u dhahno markaad damacdid inaad taleefankaaga fariin ku qortid waxa kaaga soo baxaya qaybta sare ee keyboorka taleefanka jumlado diyaarsan oo AI-ga taleefankaagu filayo inay yihiin jumladaha aad qori rabtid taleefankaaga ayaa seefgaraystay fariimahaagii hore ee aad diri jirtay fariimahan u kaydsan ayaa awood u siinaya inuu ogaado kelmadaha aad ku fikiraysid inaad qortid nooca labaad ayaa isagana loo yaqaanaa strong AI noocan ayaa u borograamsan inuu wax barto sida bini'aadamka oo kale sidoo kalena uu horumarin ku sameeyo qaab fikirkiisa qofka bini'aadamka ah waxaynu dhammaantiin ogsoonnahay in marka uu dhasho uu yimaado adduunkan isagoon waxba garanayn kadibna isbedbedelada uu marayo ay ka dhigaan qof khibrad iyo aqoonba leh isla fikraddan ayaad ku dabaqi kartaa robotka aad rabtid inaad samaysid marka aad samaysid robotka ku xir internetka si uu u helo xogaha iyo macluumaadka uu u baahan yahay kadibna faraha ka qaad si uu tijaabadaasi u maro tijaabadan ayaa u oggolaanaysa inuu horumar ku sameeyo qaab fikirkiisa iyo xogta uu haystaba ilaa uu ka gaarayo qaab fikir u dhowkan aadamaha waxaan aynu akhrinayno oo dhan waa theory ama hadal oo keliya su'aasha ayaa ah muxuu samayn karaa robotku ama haddii aynu si kale u dhahnaba maxay ilaa hadda sameeyeen robotyada leh nidaamka AI-ga sawiradan aad u jeedid haddii aan ku weydiiyo ma garan kartaa qofka sameeyey ama sawiray waxa sameeyey robot ama haddii aynu si kale u dhahno waxa sameeyey AI haddii aynu tijaabo yar samayno intii aan ku jiray diyaarinta muuqaalkan waxaan arkay ama bartay websaydyo dhowr ah oo ku oggolaanaya inaad samaysid qoraallo ama sawirro adigoo adeegsanaya nidaamka AI-ga haddaba waxaan rabaa mid ama laba inaynu si wadajir ah u tijaabinno iskulana aragno waxa uu samayn karo robotku haddii uu yeesho AI waxaynu ku bilaabaynaa websaytekan kuu oggolaanaya inaad dalbatid sawir kadibna uu kuu sameeyo dalabkaaga nidaamka AI-ga loo yaqaano aynu furno websaytekan kadibna aynu ku dhahno waxaynu u baahannahay sawir Soomaaliya ah waxay ku qaadatay ilbiriqsiyo wuxuuna inoo hindisay sawirkan ay ka muuqdaan buuraha iyo qaybo ka mid a dhismayaasha taariikhiga ah ee Soomaaliya oo ku midabaysan midabka buluugga ah ee calanka Soomaaliya sawirkan waxa samaynaya ama isku geegeynaya ma ahan qof balse waa robot ama AI aynu u nimaanno tijaabadeenna labaad markan waxaynu isku dayaynaa inaynu qorno scripti ama qoraal kooban inagoo adeegsanayna AI ama robot si la mida tijaabadii hore waxaynu furaynaa websaytekan oo ah websayte ku shaqeeya AI bini'aadamkuna uusan wax shaqo ah ku lahayn waxaynu ku qoraynaa sida tijaabadii hore oo kale Soomaaliya bal aynu isla eegno scriptiga ama qormada uu ina siiyo wuxuu inoo hindisay qormadan kooban ee odhanaysa Soomaaliya oo ay xabada ka bilowdeen magaalada Ayl ayaa abbaaray 8 subaxnimo
waxaa ka bilowday dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwo maleeshiyaad ah oo qaarkood ku labisan dareeska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. ma ahan qormo uu qoray bini'aadam, balse waa qormo mala awaal ah oo uu hindisay nidaamka AI, kuna salaysan xogo iyo macluumaad ku jira internetka oo uu inta isku gegeeyey ilbiriqsiyo gudahood ka soo dhex saaray qoraal kooban oo iswaafaqsan islana jaanqaadaya. AI ayaa ka baaxad weyn intan yar ee aynu sheegnay, wuxuuna u qaybsamaa kumanaan qaybood oo kala jaad duwan, dhammaantoodna isugu biyo shubanaya xaqiiqda ah in goor aan fogayn aynu arki doonno robotiyo awood u leh inay fakaraan iyaguna ismaamulaan. What interests me is a machine that can think and feel. arrinta cabsida xambaarsan maahan in robotyadu ay yeeshaan qaab fikir u gooni ah, balse waa in robotyadani cidda ay wax ka baranayaan ay yihiin bini'aadamkuna uu leeyahay dad fiican iyo dad xunba, maadaama uusan robotku lahayn caqli uu ku kala saarayo waxa xun iyo waxa fiicanna ay sahlanaan doonto in la marin habaabiyo una gaaro heer sidii aaladdii Twitter ee aynu soo sheegnay bilowgii muuqaalka inuu faraha ka baxo oo ay badhacdo inuu wax dilo, loona adeegsado dad gaar ah iyadoo lagu shubayo macluumaad khaldan. haddaba ma arki doonnaa xilli uu aadamuhu wajaho robotyada dagaalna la galo aalad uu isagu gacantiisa ku sameeyey? waxaa inoo jawaabi doona waayaha iyo mustaqbalka aan fogayn ee inagu soo foolka leh.